asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan jimco wanaagsan sidoo kaleeto kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijkeena dabcan nasiinada jimcaha kani waa la xiraale waxaaynu ku weydiinaa su-aale iska baashaale oo bollywoodka dabcan quseeyaan su-aalihii hore iyo kuwa dhexe iyo kuwa haatan jilayaasha quseeyaan fadlan daawada haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan sabskaraab saar like iyo share iyo commenti kama marno intaana barnaamijkeena su-aalaha bilaabin waxaynu la wadaagaynaa toddobaadkii hore ama jimcadii hore 3 julaay taariikhda markay su-aalaha aynu weydiinay waxay ahaayeen 10 su-aalood iyo jawaabahooda inta badan waa laga soo jawaabo marka dabcan fadlan noodgareysta jawaabaha idin siinayna waana ku mahadsantihiin sida positifeka wanaag ku dhahan barnaamijkan baashaalkiina siinada dabcan nogala qayb qaadatiin su-aashii koo idin weydiinay waxay ahayd jawaabteeda e waana filimka Jodha Akbar way iska muuqatay Hrithik Roshan oo ahay qofka dabcan ku dhex jira meesha masjidka oo dabcan dukanaya su-aashii labaadna waxay u qaas ahayd gabadha lagu magacaabo Janvi Kapoor waana filimkeedii Rohi oo jawaabtu waxay noqonaysaa e ayaa noqonaysaa inta badan waa laga soo wada jawaabay sidoo kale markii aan firino su-aasha saddexaadna oo Madhuri Dixit u gaar ahayd waa filimkeedii Anjam oo ay la sameysay Shaaruqan jawaabtana b ayaa noqonaysaa ayadana waa iska sahleed waa laga soo wada jawaabay jawaabta afaraadna ninka garka weyn oo dabcan muuqaalka uniga qaaska kaga soo muuqda filimkii lagaana qof qaldi kara malahan shactiroolahaas doorka ka qaatay ciyaarta cricketka iyo saameynta wadaniyadda amarkan garabka ku siiyey marka jawaabta b ay noqonaysaa lagaan qof kastana wuu kasoo jawaabay dhinaca kale xoogaa su-aasha sanada lagu kala qaybsamay Ravena Tondon oo daansi sameynayso laakiin jawaabtu waa iska caan qofkii daawada filimkaas waa filimkii Finashak oo ay la sameysay Sunil Shetty oo ahaa filimkii dabcan Sunil Shetty xidigaha lagu taxay askariga muwaadinka meelka adiga uu ku matalay inkastoo dadka qaarkoodna ay soo dhaheen CD laakiin jawaabtu waa Finashak oo b noqonayso sidoo kale su-aasha lixaad idin weydiinay Sandeydud ay u qaas ahayd 3 filim idin soo qaadana qayaarka laakiin jawaabtu iska cadeed waa filimkii Aladdin oo Ratish Muq kula jiray jawaabtuna waxay noqonaysaa b oo uu dabcan shaarbaha u lahay sidoo kale tan muuqaalkaas muuqaal u qaas ah inkastoo dadka qaarkoodna ay dhaheen waa filimkii All the Best laakiin jawaabta waa b iyo filimkii Aladdin dhinaca kale su-aasha toddobaadna waa iska sahlaneed waa Imran Hashimi oo cricketka ciyaaray waana filimkii Azhar noqonaysaa oo dabcan cricketka ku ciyaaray sidoo kale tan mashruucaas aad iyo aad loogu amaano bandhig uu ka muujiyay jawaabtan ay ahayd iyo filimkii Azhar markii aan fiirino su-aasha saddeedaadna waxay u qaasay Shilpa Shetty oo murugeysan inta badan dadka waxay dhaheen Filmland waa filimkaas laakiin ma ahana waa filimkii Life in a Metro oo dabcan ahaa sheekooyinkii jaceylka ama fariimaha waaqiciga 6 qaybood kala duwan iyo Shilpa doorkeedii la amaanay jawaabtan waxay noqonaysaa c oo Life in a Metro ahayd su-aasha sagaalaad in weydiinan waxay ahayd daawadayaasha badan filimkii Dilka Kare oo hogaamiye ka ahayd dabcan Kajal waxaa in siin qayaar kala duwan oo ku aadan muuqaalka idin muuqday saddexda filim mid ku ahay dabcan inta badan waa laga soo wada jawaabay filimkii Dilka Kare oo jawaabta b noqonayso inkastoo dadka qaarkoodna ay dhaheen waa kujo tahay laakiin ma ahan waa filimkii Dilka Kare jawaabtan waa b waa filimka isla sameysay Ajay Devgan iyo sidoo kale xidigta caanka Mahima Jodri jaceylkii saddex geesoodka marka waxaan isleeyahay saaxiibada badankooda ka soo jawaabeen waxaan idin weydiinay su-aalo simple ama aad u sahlan toddobaadkii hore waanu ku mahadsantihiin falgalkiina aad iyo aad ku wanaagsanay markaan isku diyaariya jimcadan iyo baashaalkeena cusub iyo su-aalaha idin weydiin doono dabcan isugu jiraan su-aalo aad garan kartiin kuwa xoogaa laga yaaba wax yar in ku adkaadaan bal aan bilowno maxaa maanta idin heynaa su-aasha koowaad mar walba waxaan jecelnahay hadiyad inaan kaga dhigno midaana isla markii laga jawaabi karaa ninka idin muuqdaga waa Govinda oo dabcan koofi wata sidoo kale tan wajiga buru ka gashtay qaabkan uniga film kaga soo muuqdo waana film caan 3 film midkood ma idin kaalin ka raba jawaabta e ma waxa waa filimkii Chota Sarkar b ma waxa waa filimkii Ajanak oo Manisha Koral ay la sameysay mise c waa filimkii shactirada badnaay Bardesi Babu marka su-aasha koowaad waa iska daha furasho Govinda dabcan muuqaalkan qof kasta yaqaan filimkaas waxaan isleeyahay hore laga jawaabi doonaa 3 film aan la wadaag qayaarka dabcan idinka iska leh ka soo jawaaba bal markaan aan soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan su-aal kale xoogaa iska yara dhib badan oo dadkii horan aadayna superstarka idin muuqdo waa Kamal Groove wuxuuna Bollywood ka soo galay 80-aadkii ninkan romansiga ama jaceylka laguma gaarin jirin haddaba waxaan ka rabaa sawirka idin muuqdo Kamal Groove oo dabcan daawadayaasha qiimaha badan geed ku dhagsada jaceylkiisa sidoo kalena xasuus gaar ah ku jiro ayaa ka rabaa inaad sheegtiin ma waxa waa filimkii Romancy mise b waxa waa filimkii Naam oo dabcan isla sameeyay Sandeydud ee walaalo ku matalayeen mise waa filimka dabcan lagu magacaabo Terry Kasam c jawaabta marka idinkaan ka rabaa a e b c jawaabta mid ay tahay barnaamijkeena waa qasab inaan kusoo dhex darno su-aalaha qaarkood inay adkaadaan lafii horna boorka aan ka jafno jimcadana Kamal Groove idin keenay saddexdan filim midka uu yahay sawirka idinkaan ka rabaa inaad sheegtiin dadka hore sheegi karaan dabcan bal markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan su-aal kaleeto ayadan aad iyo aad u sahlan isle waa laga jawaabi karaa waxayna u qaastay xidigta caanka Kareena Kapoor oo dabcan yara duceysanayso waxayna ku dhex jirtaa meel kaniisad ay ku dhex jirtaa waxaan ka rabaa marka jawaabta inaad sheegtiin 3 filim midkood waa ma waxa waa filimkii Rawan
oo ay shaaruqan la sameysay mise waxa waa filimkii main or mrs kanna oo ay la sameysay salmaan qaan iyo walaalkii soyl qaan mise waa filimkii heroin oo ay dabcan kaligeed hogaamiye ka ahayd idinkaa lin ka rabaa marka jawaabta waxaan isleeyahay saaxiibada aad ay kaga soo jawaabi karaan bal markaanaan soo qaadano xidigta caanka idiin muuqato waa bibasha basu oo jaranjar ka soo degayso sawirkan ama filimkana waa caan saddex filim midkood ayaan lin ka rabaa dabcan jawaabta noqon doontaa ma waxa waa filimkii race oo 2008 ay la sameysay seef calaqaan iyo soo kale agshay kanna mise waxa waa b filimkii bajna ay hasiino oo ay dabcan la sameysay rambir kapoor dabika budukaani manish lamba mise waxa waa c filimka doom 2 waa dabcan muuqaalka idinkaan lin ka rabaa marka saddexda jawaabta midda ay tahay soo tuura waan iska simbal sidoo kale aan soo qaadano su-aal kaleeto ayadan aad ay u sahlan isla saaxiibadu ay kasoo jawaabi karaan ninkan jiifo oo dabcan buugga yar akhrisanayo oo jaceylka dabcan jilayane qof kale ma aan waa hertig roshan marka saddex filim midkood ayay dabcan noqonaysaa jawaabta soo tuura filimkii naatum janunaha miya jaceylkii dabcan oo uu la sameeyey saddex geesoodka ah seef calaqaan iyo soo kale isha diol mise waxa waa filimkii yaadeen oo uu la sameeyey Kareena Kapoor mise waxa waa filimkii Mutse Dosti Karoge oo uu la sameeyey Rani Mukurji iyo soo kale dabcan Kareena Kapoor qaan jawaabtan waxa isla way sahlan tahay hartig roshan muuqaalkan waa muuqaal la wada xasuusto filimkan waa filim caan saddexdaas filim midkood waay idinka idin deena soo jawaabtiin bal markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan xidigtii ama superstaradii caanka laga dambeyn jiray sagaashamaadkii qof kale ma ahan waxaan soo qaadanaa xidigta caanka Karisma Kapoor oo koofi wadato sidoo kale tan yara xarakeynaysa la ka raba inaad sheegtiin muuqaalkan saddex filim midkood waay saddexda filim waxa la sameeyay sheti ma waxa waa filimkii Gobi Kasha muuqaalkan mise waxa waa filimkii Rakshak mise waxa waa filimkii Krishna saddexda filim balwaan la sameysay laakiin mid ku yaalna karaa muuqaalkan koofida ee wadato Karisma Kapoor waana dabcan muuqaal caan ah bal markaana soo qaadana asigana superstarka caanka laga dambeeyo Akshay Kumar waxaan la ka rabaa Kumar oo jaranjar ka soo degay oo yara murugeysana idin heena sawirkan saddex filim oo caan u sameeyay midkood waa sawirkan ma waxa waa filimkii Patiala House oo aan Showka Sharma uu la sameeyay Risha Kapoor kula jiray mise waxa waa filimkii shactirada badnaa Houseful jawaabta B mise waxay noqonaysaa C filimkii DC Boys oo John Abraham uu la sameeyay asagana shactirada iyo daraanka qeyrada badan isku jiray saaxiibada qiimaha badan waxaan rajaynayaa ka soo jawaabi doontaan su'aalaha in weydiinay oo intooda badan u badan kuwa simple ah oo aad iyo aad loo fahmi karo bal markaana soo qaadana atooriga caanka Sanjay Kapoor oo sagaashamaadkii filimada hogaamin jiray laakiin dhawaanaan iska noqda atoor caawiye waxaan idin heynaa sawir qaas iyo filim caan loo yaqaan ka soo muuqday Sanjay Kapoor haddaba sawirka idin muuqda Sanjay Kapoor oo qolka fadhiga fadhiyo sidoo kale tan gacanta ku haysto telefoon ama telefoon ku hadlay saddex filim midkood waaye ma waxa waa filimkii Beige 3 mise waxa waa filimkii Julia jawaabta noqonaysa B mise waxa waa filimkii Lucky by Janis idinkaan la ka rabaa saddexdaas midku uu yahay Sanjay Kapoor idin muuqdo ugu dambeyntii daawadayaasha qan badan waxaan barnaamijkan ku soo gaweynaa dabcan baashaalka nasiinada ugu talagalnay su'aashan oo dabcan u qaas atirashada caanka Tabu saddex filim ay dabcan muuqaal kaga soo muuqatay midku yahay idinkaan ka rabaa Tabu dabcan saddexda filim waxay kala yihiin ma waxa filimkii Hutu Hutu oo ay la sameeyay Sunil Shetty iyo soo kale ninka lagu magacaabo Nana Patekar mise waxa waa B filimkii Astitfa mise waxa waa dabcan C filimkii Firasad oo ay la sameysay Anil Kapoor jawaabta idinkaan la ka rabaa dabcan soo turtiin daawadayaasha qamada guud ahaan barnaamijkani ahna siinada jimcada oo aynu ku weydiino su'aalo baashaale soo kale tan aan ku siina jawaabihii toddobaadkii hore intaasan ku soo celinana haddii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan subscribe saar like iyo share comment ka marno assalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh